صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومعلمنا وقدوتنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الأحبة في الله، ملكستو أتشوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد برنامج كيني داود صونكا. صونكو وداو soonku waxaa weeye waxaa lagu gaaraa rido rabbi iyo sacaado labada daaroodba. xalqadani waa xalqadii 13aad waxaana ku qaadaa dhigi doona biidni illaahi almawla jalla fi culaa adducaau huwa alcibaada. ducada iyo ilaahay oo la baryo subxaanahu caza wajal oo la weydiisto khayray dunya waalaakhira, akhriya adduunba khayrkooda, oo laga magan galo sharta labada daaroodba. ducada iyo ramadaanka xiriir aad u weyn baa ka dhaxeeya. aayaatu siyaam yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu ilaa aakhiri alaayaat. markuu rabbi subxaanahu wa tacaala fi suurati albaqara noogu sheegay, allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu ku xijiyey aayadda ducada ka hadlaysa ee uu leeyahay rabbigeen jala jalaaluh, waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun. hadday ikaa weydiiyaan addoommadaydu, aniga hadday ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan u dhowahay oo aan ducadooda aqbali doono hadday i baryaan weeye. hadday i baryaan ducadooda waan aqbali doonaa, ee ha iga istijaabo dalbeen. inaan ducada ka aqbalo ha iga dalbadeen, ha i rumeeyaan addoommadaydu, rabbigood baan ahay buu leeyahay rabbigeen. lacallahum yarshuduuna, marka inay hanuunaan bay mudan yihiin. marka maadaama aayaddaa ducadana lagu faray, ilaahayna inuu noo dhow yahay uu noogu sheegay, ay timid bacda aayaati siyaam, soonka ducada waa la aqbalaa. nabiguna sala allahu calayhi wasalam dadka aan ducadooda la celinin ee ilaahay u aqbalo waxaa ka mid ah buu yidhi assaa'imu xataa yaftur. qofka sooman ilaa uu ka afuro. qofka sooman inta uu ka afurayo ducadiisu waa maqbuula. ducada marka in lagu dadaalo ayaa la doonayaa. rabbigeen subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum. wuu ina amray. rabbigeen wuxuu yidhi udcuunii waa ficlu amr, ibarya ituuga ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala leeyahay, aan idin ajiibe bal allahu subxaanahu wa tacaala wuu u caroodaa qofka ducada ka taga istihaanatan iyo wastikbaaran, isaga oo ducada ka santaagaya, iska weynaynaya. faqaala caza wajal, ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. kuwa cibaadadayda baryadayda kuwa iska kibriya jahannamo ayay gelayaan buu yihi rabbi subxaanahu wa tacaala, wayna ku waarayaan ciyaadan billaah. nabigeenuna sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay, man lam yas'al illaha yagdab calayh. xadiidu imaamu tirmidi fii sunanihi ku soo saaray, qofkaan ilaahay waxba weydiisanin ilaahay waa u caroodaa. ilaahay haddaad baryi weydo oo aad gacmaha u taagan weydo waa kuu caroonayaa jala jalaaluh. inaad barido tuugtana waa kugu jeclaanayaa. adducaau huwa alcibaada. ducadu iyadoo unbaaba cibaadada. xasri baa ku jira oo macnaheedu uu yahay ducada unbaa cibaado ah. allahu akbar. waaw cibaadadii kale
aaway jihaadkii, aaway ramadaankii, aaway salaadii, aaway tawakulkii, aaway waxaasoo dhan culummadu waxay leeyihiin waa min baabi taqliib oo alxaju carafa oo kale ayay la mid tahay. culummada qaar kaloo ka mida waxay leeyihiin maye cibaadada oo dhan oo kale oo la sheegaya ayaaba duco ah. salaadu waa duco, oo zakadu waa duco, oo xajku waa duco, oo tawakulka iyo iimaanka iyo khashyadu waa duco. ducaduna waxaa weeye ilaahay oo inkisaar iyo tadallul iyo khuduuc iyo alla ka cabsi loo muujiyo weeye. marka macnihii cibaadada oo dhan ducada ayay ku jirtaa ayay ahlu cilmiga qaar ka mida ay leeyihiin. almuhim ducadu waxay leedahay dhadhan. xilliga qofka uu jirkiisa uu baahan yahay, uu ooman yahay, ilaahay dartii uu sooman yahay, inuu ilaahay gacmaha kor ugu taagto, ilaahay uu baryo isaga oo markaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala u tadarucaya, alla qaabilaya subxaanahu wa tacaala. ilaahay subxaanahu wa tacaala asmaadiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa qiimaha badan ku baryaya qofka isaga ah waxay u badan tahay in ducadiisa la aqbalo. in ducadiisa la aqbalo ayay u badan tahay. allahu tabaaraka wa tacaala wuxuu mar kale inoogu yeerayaa oo uu inoo sheegayaa ducadu inay ikhlaas tahay. qaala allahu tabaaraka wa tacaala fadcu llaha waa ficlu amar. mar kale fadcu llaha ilaahay barya mukhlisiina xaalaatihin kuwa ilaahay cibaadada u baraxtiraya, mukhlisiina lahu ddiin walow kariha alkaafiruun. halkaa waxaad ka garanaysaa ducadu ahmiyadda ay leedahay. wاdducaau huwa alcibaada, sidaan sheegnay xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. walaalayaal, qofka hadduu ducaysto ilaahay uu baryo, qof kastoo muslim ah oo ilaahay barya oo aan dembi ilaahay weydiisanin iyo qaraabo goys, allah subxaanahu wa tacaala baryadiisa waa siiyaa. saddex mid unbay noqon: inuu ilaahay baryadiisii usoo dedejiyo oo iyadoo kaash ah uu markiiba farta ka saaro, ama inuu ilaahay u dibdhigo subxaanahu wa tacaala maalinta aakhiro, maalin uu uga baahi badan yahay maalintaas uu joogo, inuu ilaahay ugu dibdhigo oo kayd ay u tahay. arrinta saddexaadna waxaa weeye in bale kale oo kugu soo socotay, halaag kale oo kugu soo socday, inuu rabbi subxaanahu wa tacaala kaaga xifdiyo. musiibo kale oo kugu habsan lahayd, inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu kaaga xifdiyo. marka saddexdaas arrimood mid un weeye. nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yustajaabu liaxadikum maa lam yucajil. midkiin waa loo dembi dhaafaya hadduusan degdegin. saddexdaa jeer inay mid un tahay markuu saxaabada nabiga u sheegay ayaa waxay ku yidhahdeen idan nukthir, ducada waan badinaynaa. markaasuu nabigu yiri sal allahu alayhi wasalam allahu akthar, ilaahay baa idinka badan. deeqda ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa idinka badan, oo waxa siismadiisa, fadligiisa, cataayaadkiisa ayaa idinka badan, oo khazaa'intiisu ma maranayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala lahu miiraasu samaawaati waalardi walilaahi khazaa'inu samaawaati waalard. si kastood ilaahay u baridaan, ilaahayna uu idiin siiyo, waxaa weeye milkiga ilaahay iyo boqortooyada ilaahay ma nuqsaaminaysaan ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam. ayuha alaxibatu fillaah, waxaa jira waqtiyo loo malaynayo, qaarkoodna uu sharcigu sheegay, nabiga uu sheegay sala allahu calayhi wasalam, oo ducada la aqbalo. xilliyadaasi inuu ku dadaalo qofka muslimka ah ee sooman ayaa la doonayaa si ducadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalo, weliba uu ku celceliyo. waqtiyada waxaa ka mid ah saacatun min alleyl, habeenkii saacad ka mid ah. waxaa kaleoo ka mid ah waqtu saxar, xilliga suxuurta, in ducada la badiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wax la weydiisto dembi dhaaf iyo inuu ilaahay dembigaada dhaafo ayaa ugu weyn. allahna subxaanahu wa tacala wuxuu yidhi wabilasxaari hum yastawfiruun. xilliga suxuurta ayay alla subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf weydiisanayaan. dembi dhaaf ilahay inaad weydiisatana waa nooc baryada ka mid a, bal waa midda ugu qiimaha badan. habeenada ramadaankana waa habeenada ducada la aqbalo. marka uu muadinku dadka salaada ugu yeero xaya cala asalaa, xaya cala alfalaax uu yidhaahdana ducada waa la aqbalaa. wa cinda sujuud, qofka markuu ilaahay wejiga dhulka u dhigo
oo subxaana rabbiya alaclaa yidhaahdo, xaggana ilaahay uu qiro inuu uunkiisa ka sarreeyo oo uu qadran iyo wadaatanba Allah subxaanahu wa tacaala sarreeyo, wejigiisii meeshii jirkiisa ugu qiimaha badnaydna uu dhulka dhigo, waa xilliga uu addoonku rabbigii ugu dhow yahay subxaanahu caza wajal. aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbih wa huwa saajid faakthiruu fiihi adducaa ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam. maalinta jumcada ah waxaa ku jirta saacad ducada la aqbalo. waa goorma? ma markuu imaamku mimbarka fuulaa? ma casrka wixii inta ka dambaysaa? waa goorma? ahlu cilmigu aqwaal badan bay ka yidhaahdeen, laakiin yowm ljumca saacad ducada la aqbala ayaa ku jirta. sidoo kale xilliga uu roobku da-ayo, xilliga ay labada ciidan jeyshul xaqi iyo jeyshul kufri ay fooda isdaraan, iyadana wax in ducada xilliyada la aqbalo ayay ka mid tahay. qofka sooman ducadiisa Allah subxaanahu wa tacaala ma celiyo. waalidku markuu carruurtiisa u ducaynayo ducadiisa waan la aqbalaa. walaalku markuu walaalkii kale u ducaynayo isagoo ka maqan ducadiisa waa la aqbalaa. waxyaabahaasoo dhan waxay daliil u yihiin in ducada waqtiya lala doonto oo lagu dadaalo, si gaarana loo raadsado inay jirto ayay daliil u tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala aan barino, ilaahay subxaanahu wa tacaala aan barino walaalayaal. atahza'u biاdducaa'i watasdariihi amaa tadrii bima facala adducaa'u sihaamu leyli laa tukhti walaakin laha amadun walilamadi inqidaadu. ayuha alaxibatu fi llah, xalqadan way nala dheeraatay baan u malaynayaa. halkaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa inta aynu kaga kulmi doono xalqadda 13aad. atrukukum bixifdi illahi wa ricaayatih. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام